Asalaamu calaykum, kusoo dhawaada course gaaban oo aan uga hadli doono Affinity oo ay soo saartay Canva. Softwarekan maalmahan aad ayaa loo hadalhayey, waxaana aan rabaa muuqaalkan si kooban inaan uga hadlo iyo wax walba oo aad rabto inaad ka ogaato Affinity. Anagoo waqti iska luminaynin ayaa hore gudaha u gelaynaa. Marka hore markaad soo degsanayso website-ka ayaa kasoo degsan doontaa. waxaa waaye website-ka rasmiga ah ee Affinity. waxaa ku qoraysaa affinity.studio/download. kadib qaybtan oo Windows-ka ayaa soo degsan doontaa haddii aad Windows isticmaasho. haddii aad Mac isticmaashana waxaad soo degsan doontaa qaybtan. marka hadda aniga Windows ayaa isticmaalaya, waxaa ku dhufanaya qaybtaas. kadib qaybtan ugu horeyso ayaan ku dhufan doonaa. markaan soo degsado kadib wuxuu i tusi doonaa screen qaab noocan oo kale ah. meeshan waa home screenka ayaa joogaa. halkan waxaa ka arki kartaa waxyaabo fara badan. hadda anaga waxaa noqosayso qaybtan oo blast ah. marka ugu horeyso qaybtaas blast ayaa ku dhufan doontaa. markaa ku dhufato meeshan ayaa wax walba ka ogaan doontaa. waa sidii illustrator-ka oo kale. halkan waxaa igu jiro cabiro oo by default i diyaarsan sida A3, A4, A5 iyo letter. halkan waxaa ka dooran karaa document size-ka. tusaale ahaan haddii aan rabo pixel, haddii aan rabo inch, haddii aan rabo centimeter, wax walba oo rabo. tusaale ahaan centimeter oo kale waxaa u isticmaali karaa cabrada yaryar invitationska iyo waxyaalaha la xiriira. sidoo kale metriska waxaa u isticmaali karaa sida boorarka iyo waxyaabaha oo soo hoos gala. boosterska waxaa u isticmaali karaa pixel. markaa ku dhufto kadib cabirka halkan gashan karaa height-ka iyo width-ka. tusaale ahaan waxaa leeyahay square oo kale. wuxuuna keenay workspace-ki. insha Allah waxaa qabanaya hadda waxyaabo fara badan oo rabtid inaad ogaatid. meesha ugu horeysa oo khasabka inaad focus ka saartid waa qaybtan. waxaa ku ogaan doontaa in la isugu keenay dhammaan wax walbo, yacni Photoshop, Illustrator iyo waxyaabaha kale ee la xiriiro. tusaale ahaan qaybtan hadda aan sheego waa pixels. waxaa ku shaqayn kartaa pixelna waxaa isticmaali jiraysaa in la socono Photoshop. sidoo kale qaybtan waa vector waxaa ku shaqeeya Illustrator. marka wax walbo softwareadii kala duwanaa ayaa hal meel isugu keenay. sida aragtaba waa cajiib. sidoo kale layout ayaa jiro, isagana waa isticmaali kartaa. sidoo kale Canva AI ayaa jiro. Canva AI xitaa halkan waad isticmaali kartaa. sidoo kale waxyaaba cajiibka ayaa waxaa ka mid ah in aad u isticmaali karto sidii Illustrator-ka oo kale. tusaale colorka oo kale panelkiisa intaad soo qaado ayaad drag aad u samayn kartaa oo meesha aad doonto ayaa geen kartaa. sidoo kale resize ayaa ku samayn kartaa panelka. maantii Affinity aad ayuu u fudud yahay. qof walba oo yacni oo wax ugu bilaabnaa Illustrator wax badan kusoo dhex jiray aad ayuu ugu fudud yahay. haddii aan positionkiisa rabo inaan ku celiyo arnacaas ayaa ugu celin karaa. toolskan oo dhan customize ayaa ku samayn kartaa. sidoo kale toolbarska customize ayaa ku samayn kartaa. menuska all customize-ka markaan ku samaynayno sidoo kale halkan inaad ku dhufato ayaa waxaa samayn kartaa toolbarska customize ayaa ku samayn kartaa. midkii aad rabto in oo remove la dhaho iyo midkii rabto in lagu soo daro. sidoo kale halkan toolskii ayaa ku jiro, panelskii walba customize ayaa ku samayn kartaa. mid waa hide gareyn kartaa, haddana waa soo saari kartaa oo soo bixin kartaa. toolska ayaan gudagali doonaa. midkan waa selection tool ama move tool. waxaa ku dhaqaajin kartaa waxyaabaha shapeska. tusaale markii aan shape halkan kusoo daro halkan waxaa ku jira shapes fara badan. tusaale rectangle ayaa doonanayaa, noocaas ayaa u samayn doonaa. kadib color ayaa halkan ka dooran doonaa. color markii aad doonto ayaad halkan ka dooran doonta. aniga hadda blue ayaa isticmaali doonaa, light blue oo kale. kadib
selection tool waxaa ku samayn kartaa move, sidoo kale drag, sidoo kale resize ayaa ku samayn kartaa. sidaa ujeedinba waa aad ayuu u fudud yahay, aad iyo aad. sidoo kale waxaad ku soo dari kartaa stroke levelka ayaa wax ku dari kartaa. marka la joogo colorka qaabka uu hadda u muuqanayo waa ka bedeli kartaa. waxaa samayn kartaa arrowkaas yar intaa ku dhufato kadib hadda wheel ayaa ii saaran. waxaa isticmaali kartaa adiga sliderskaas waa qaab noocan oo kale ah, laakiin aniga hadda waxaa ka helaa wheelska ayaa kale. sidoo kale waxaa jiro box, midka xitaa waa isticmaali kartaa. waa sidoo kale midkan ayaa jiro. markaan waxaa doorbidayaa wheelka, midkan ayaa ila qurxoon siduu u samaysan yahay. sidoo kale toolkan oo loo yaqaano artboard tool ayaa jiro. artboard tool intaa ku dhufatid kadib waxaa samayn kartaa artboard cusub ayaa kusoo dari kartaa, plus ayaad dhihi kartaa. kadib artboardkan asagana waa ku shaqayn kartaa. waxaa kusoo dari kartaa text, qoraal ayaa kusoo dari kartaa. midkan waa text waaye. kadib meeshaa rabta inaad qoraal kusoo darta ayaa ku dhufanaysaa. kadib waxaa leedahay qoraalka ee halkan runaysa. artboard markaa rabo inaan delete gareeyo waxaa leeyahay artboard, kadib artboardka ayaad delete ayaad taabanaysaa oo keyboard ka taaban kartaa. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa pen tool, waa isagana waa sidii illustratorka oo kale. kadib color ayaa siinaysaa, waxaad leedahay color noocaas. sidoo kale strokena waa ka saari kartaa. waxaa rabnaa inaan ogaano waxyaaba u duwan yahay oo Affinity gaar u yahay illustratorka iyo photoshopka ugu duwan yahay ayaa rabnaa inaan ogaano. marka xoogaa waxaa samayn doonaa poster iska simple ah. waxaa kusoo darsan doonaa sawir. waxaa leeyahay file, kadib place ama shift control M, kadib waxaa soo dooran doonaa sawirka. kadib drag ku samee sawirka positionka aad dhigi doonto. kadib waxaa kusoo darsan doonaa text. waxaa leeyahay size ayaa ku samayn kartaa. fontiga noociisa halkaas ayaad ka dooran kartaa. sidoo kale font type iyo font styleka ayaad halkan ka dooran kartaa. aniga hadda waxaa isticmaali doonaa font stylekan waxaa isticmaali doonaa. markaa rabo inaa copy aan sameeyo waxaa leeyahay click, kadib alt la qabo, alt hoosadii softwareda adoo copy waxba kama duuna. mid kale ayaa rabaa inaan copy gareeyo waxaa leeyahay alt, kadib click qabo, kadib drag ku samee. ama waxaa samayn kartaa right click, kadib copy, right click, kadib paste.
dhexda ku jira ayaa waxaa ka samayn doonaa bold, waxaa ka dhigi doonaa bold. Sidoo kale fontiga rabaa inaan bedelo, qaybtan ayaa ka bedeli doonta font color, dhigi doonaa all. Colorkaas ayaa siin doonaa. Amba waxaa isticmaali kartaa color picker, kadib colorkii aa ku anfaco ayaa siin kartaa. Intaas kadib waxaad tagi doontaa qaybta layerska. Marka sawirka rabaa inaan qaybta sare aan keeno, waxaa ku samayn doontaa sawirka drag and drop. Qaybtan waa layerskii waaye. Sawirka ayaa qaadi doonaa, waxaa geen doonaa qaybta sare. Qaybta sare ayaa keeni doonaa. Waxyaaba cajiibka waxaa ka mid ah in aad ku furi karto motion blur sawirka. Marka motion blur markaa ku leeyahay waa Illustrator kuma jirin motion blur. Sidoo kale markii aan motion blur oo kale rabo inaan saaro waa in aan isticmaalo Photoshop. Marka hadda Photoshop ma tagay, waxaa leeyahay sawirka ayaan dooran doonaa, kadib qaybta waxaa dooran doonaa qaybtan oo effectska ayaa tagi doonaa. Kadib waxaa leeyahay blur noocii aan doonayo. Tusaale ahaan Gaussian blur haddii aan rabo, Gaussian blur ayaa halkan ka dooran doonaa. Marka hadda waxaa leeyahay motion blur, sawirka ayaa motion blur isticmaali doonaa. Kadib radiuska ayaad halkan ka maamuli kartaa. Saa u jeedinba motion blur aad u qurux badan oo ii saaray. Marka qaybtan waxaa ka maamuli kartaa rotationka dhinaca ku dhacay motion blurka. Tusaale ahaan degree-ga ayaa ka bedeli karaa. Motion blur wuxuu ka mid yahay waxyaaba aadka u qurxiyo markaa posterka diyaarinaysid. Run ahaantii Illustrator ayaa muddooyinkii dambe aad u isticmaali jiray, waxaan posters ku samayn jiray, laakiin Illustrator kuma jiro motion blur. Waxaa qasbanaa inaad tago Photoshop aan tago, kadib motion blur halkaas aan ku sameeyo. Marka hadda all in one waaye, wax walba waa la ii fududeeyey. Halkan ayaa wax walba ku samayn karaa. Sidoo kale waxaa cajiibka kale oo rabo inaan idin tuso waxaa ka mid ah, tusaale ahaan markaa rabo motion blurka inaan delete gareeyo, halkaas ayaa delete dhihi kartaa. Waxyaaba kale cajiibka rabo inaad aragtaan waxaa ka mid ah glitch waxaa la dhaho. Glitch halkan ayaa ka dooran doontaa. Waxaa leedahay filter, kadib waxaa leedahay sidoo kale slice-ka rabaa inaan arko aniga. Slice-ka saa aragtanba waxaa samayn kartaa glitch. Slice vertical haddii aan rabana sidoo kale halkan waxaa ka dooran doonaa shared, kadib aan arko. Wow, run ahaantii waa waxyaaba cajiib ah. Waxyaaba kale oo la yaab kale waxaa waaye wax walba live waaye. Live preview adigoo ku dhex sugan oo kale waaye. Waxaase automatic oo arki kartaa isbeddelka ku dhacaya sawirka. Inaa okay dhahdid kadib aad aragtid oo kale maaha, wax walba live waaye. Shared-ka oo kale qaab noocaas waaye. Waxaa rabaa shared-ka inaan color ku daro.
shared color ayaa leeyahay soo ujeedinba waa kaas sidoo kale qoraalkan markaa rabo ina iyadana blur aan saaro waxaa dhihi karaa effect kadib gashan blur iyadana sidoo kale live waaye gashan blurka soo ujeedinba blurka ayaa ku dari soo ujeedinba blur ayaa saaray qoraalkina okay markaa rabo inaan booster aan save gareeyo qaab noocee u save gareyn karaa waxaa dhihi karaa file kadib waxaa leeyahay export kadib waxaa leeyahay export ayaa halkan ka dooran doona qaybtan waxaa ka dooranaysaa nooca sawirka aad samaynaysa tusaale ahaan haddii aan rabo png ayaan ku daynayaa sidoo kale jpg haddii aan rabo jpg ayaa halkan ka dooranaya waxaa leeyahay best quality jpg oo best quality ah sidoo kale cabirka sidiisaas ka ahaado kadib waxaad leedahay export marka haddii aan png ka rabana png halkan ka dooranayaa badna waxaa isticmaalaa png oo ay qualities mar walba lagama sheekeyn karo kadib waxaa leeyahay export dib magac ayaa u baxsan doontaa waxaad leedahay tijaabo waa png file waaye sidaa ujeedinba kadib meesha aad ku save garaynaysid ayaad dooranaysaa soolaan downloadska kadib waxaa leeyahay save haddii aan downloads aan tago waa kaas sawirkeyga halkaas ayuu ii yaalaa okay su'aalaha markaa rabo inaan kusoo diro elements posterka rabo inaan elements aan kusoo diro waxaa leeyahay qaybtan oo toolska qaybta shapeska right click ku dhufanaya kadib waxaa leeyahay square star oo kale ayaa kusoo darsan kara halkan waxaa ku jiro dhowr shape ayaa ku jiro waxaa ku jiro heart waxaa ku jiro star ayaa ku jiro soo ujeedinba sidoo kale square star hadda midkan ayaa isticmaali doonaa marka control la qabo cafwan shift la qabo si uu dhaqdhaqaaqa faraha badan u yareeyo kadib koob markaa rabo inaan ku sameeyo alt ayaa qaban doonaa kadib waxaa leeyahay waa qayb sare ayaan geyn doonaa okay markaa rabo inaan sawirka hortiisa aan keeno soolaan kan hadda waxaa waaye gadaal u yaalaa markaa rabo inaan sawirka hortiisa aan keeno qaybta layerska ayaan tagayaa kadib drag ayaan ku samayn doonaa sawirka korkiisa ayaan keeni doonaa intaas kadib effect ayaan ku shubi doonaa waxaa leeyahay qaybtan filter markaa rabtid inaa effect aad kusoo dirtid waxaa qasaba inaad joogtid layer panel kadib waxaa leedahay filter kadib gashan blur ama motion blur midkaad doontid ayaad ka dooranaysaa ani mar walba waxaa jeclahay motion blurkan aad ayaa ugu helaa inaan posterska u isticmaalo sidoo kale midkan waxaad leedahay filter kadib motion blur ayaa kusoo daraysaa sidoo kale kadib waxaa leedahay qaybtan waa iska xiri doonaa kan resize ayaa ku samayn doonaa xoogaa weyneyn doonaa sawirka sidoo kale midkaana xoogaa cabirkiisa weyneyn doonaa sidoo kale waxaa wax ka baran doonaa qaybta menuska fileka oo kale waxaa ku jiro wixii essentialka ahaa markaad sawir aad save garaynaysid markaad new document aad soo furanaysid sidoo kale markaad exiting window aad soo furanaysid midkan save askan waxaa isticmaali kartaa markii aad windowga wixii aad ku edit garaysay hadhow aad rabtid inaad wax ka bedeshid
tusaale ahaan markii aad Illustrator aad joogtid faylka waxaa ku save gareynaysay EBS ahaan ama AI ahaan ayaa ku save gareynaysay. Sidoo kale Photoshop markaad joogtid waxaa sameynaysay PSD ahaan ayaa ku save gareynaysay. Marka midkaan markaa rabo inaan sidiis ku save gareeyo waxaa leeyahay Ctrl Shift S ama save as ayaa leeyahay. Kadib Affinity file waaye isaga magac ayaa u baxsan doonaa. Kadib waxaa leeyahay save. Hadhow markaa soo furanayana waxaa leeyahay file kadib open ayaa leeyahay. Qaybtan editka waxaa waaye sawirka markaad copy and paste ku sameynaysid waxaa leeyahay cut kadib waxaa leeyahay paste. Qaybtan editka ayaa isticmaali doontaa. Sidoo kale document markaa wax laga bedelayay aabkiisa qaybtan documents ayaa u qaabilsa. Sidoo kale text qoraalka tusaale ahaan qoraalka markaa wax ka bedelaya qoraalka ayaa dooranaya kadib text ayaa leeyahay. Size oo kale ayaa big ka dhigi doona qoraalka cabirkiisa wax ku daray. Intaas markaa gudubno waa soo koobaya waxa ugu muhiimsan oo cajiibka ah maxaa kaloo ka mid ah waxaa soo furan kartaa Illustrator file hore u diyaarisay sidoo kale waxbaa ka bedeli kartaa. Let me show you. waxaa leedahay Ctrl O ama file kadib open dheh. Kadib waxaa soo dooranaysaa faylka aad inaad wax ka bedeshid. ugu midaan faylka ma ahan fayl oo Affinity ku samaysay. Waa fayl aad ku diyaarisay xal dhahay Illustrator. Tusaale ahaan waxaad dooranayaa fayl aan ku sameeyay Illustrator. waxaa ka dooranaya qaybtan load all pageska oo dhan iyo fur. Sidoo kale load pageka lambarkiisa ayaa halkan gelinaysaa hal page oo kale haddii aad rabtid in lasoo furo. Marka aniga hadda dhammaan ayaa rabaa inaan soo furo load all page ayaa leeyahay kadib okay ayaa ku dhufan doona. wuu isoo furay kadib waxaa ku sameyn karaa edit waxbaa ka bedeli karaa textiga oo kale halkan lambarka oo kale ayaan wax ka bedelayaa. faylkan wuxuu ahaa fayl aan ku sameeyay Illustrator. waxaan rajeynaa haddii aad halkan soo gaartay wax badan laga fahmay Affinity. haddii aad rabtid in wax badan oo muuqaalo aan ka soo sameeyo Affinity fadlan qaybta comment ku soo qor maraba muuqaalka inuu soo dheeraado. waxaan kaga tegayaa sidaas amaano Allah. Assalaamu calaykum.